who is bound by IHL عدة مركز international humanitarian law عدة مركز أخصائي وياه ويو حرية معناه يو جمعها كحرية أو كلوية شرعية واحد راوت الشرعية هاي هذا أودي إسكال حدنا واحد مغلس الشرعية جمعها يقبته أما الشرعية جمعها يحري مركز يو شرعية يو جمعها كحرية مركز يو وحويه وقبانية مركز أهرس parties to an armed conflict شرعية سيدي سبب international humanitarian law dhinacyada dagaalamaya oo hubeysan buu sharcigaanu qabanaya oo sharcigan loo sameeyay markiisa hore all parties to an armed conflict must respect IHL at all times dhammaan dhinacyada dagaalamaya marka oo hubeysan waa inay ixtiraamaan oo tixgeliyaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada ama IHL international humanitarian law marka waxaan qodobeynaa cid sida gaar ah u qabanay hadda si duuduuba ama si guud baa waxa nuri parts to an armed conflict dhinacyada dagaalada hubeysan buu sharcigan qabanaya ama loo soo dejiyay macnaha loo qoray sharcigan loo dejiyay loo sameeyay marka all parts baan hadana to an armed conflict must respect IHL at all times si guud ba marka labada qodob ugu dumaray states marka buu si gaar ah إذا قبنا يوحكم إذا states all states party to IHL treaties are formally required to comply with them لما مركا وضمضة أما states كقبلة states الكامريكا اللي وضموا أمريكا وكندا حنا جايبان states تاعي وحوي قبلة كانت هاي مركا كلام مدح بنان وقبل ما ممكن يحصلوا لي هاي تاسو تصوب معناها اللي هو بيسكرني لكن waxa laga hadlayaa wadamada oo dhan iyo hadii si gaar ah ay jiraan states waxa weeye si gaar ah heshiiskan u qaatay oo cidda ay noqotaba dawlad ba marka laga hadlayaa dawladaha qaybta ka ah marka international humanitarian law sharciga IHL-ka are formally required to comply waxa marka laga codsanayaa inay waxa weeye dhaqan galiyaan ama ay ku dhaqmaan them IHL-ka sharcigaas inay wadamada qaybta ka ah IHL-ka waxa weeye si markaas formal ah ba waxa looga codsanayaa inay dhaqan galiyaan sharcigaas whether the states are part to an armed conflict or not arrinta muhiimka waxay tahay state-ka marka ama wadankaas IHL-ka sharciga IHL-ka qaatay ama qaybta ka ah heshiiskaas dagaalka haduu ku jiro iyo haduusan ku jirinba wadankaaga hadii gudihiisa dagaal ka dhaco khasama dawladdu inay ku jirto waxa laga yaabaa laba qolo oo kale inay meesha ku dagaalamayaan laba group oo hubeysan qolo hubeysan marka la macnaha waa group hubeysan weeye waxay noqon karaan group wadanka dhexdiisa ka dilaacay group meel kale ka yimi groupyo isku haya waxa weeye dana gaar ah gobollo la isku dagaalay xuduudo la isku dagaalay deegaan la isku dagaalay wax noocaas marka all armed conflict marka dagaalada hubeysan oo dhan dawladdu waxa la rabaa inay markaas ay sharcigaas ay ilaaliso ugu hoggaansanto sharciga international humanitarian dawladdu marka waxa la yiraahdaa dagaalka iyadu qaybaha kamid ah dagaalka ahaato ama yeesan ahaan waxa la dawladdu inay qolo macnaha cid kale oo mucaarad ay la dagaalayso ama in laba group oo is dagaalayaan aan dawladda ahayn marka dawladdu iyadoo hadii ku jirto iyo hadii san ku jirinba waa inay sharciga u hoggaansantaa they must do everything in their power to respect and ensure respect for IHL dawladdu marka ama dawladuhu statesku waa inay waxa weeye awoodooda dhan isugu geeyaan daymaas waxa laga hadlayaa stateska laga hadlayaa waa inay awoodooda isugu geeyaan ama awood walba ay leeyihiin waa inay isticmaalaan si marka loo ixtiraamo ama loo tixgeliyo loona hubiyo in la tixgeliyay sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada in markaas waxa weeyaan maraynaa fahanay dawladdu waxa la rabaa in awoodooda ama awood walba ay leeyihiin isticmaalaan sharcigan iyaguna ay tixgeliyaan isla markaana ay hubiyaan sharciga la tixgeliyay oo aan lagu xad gudbin